idilhaantii daawadayaal meel walba naga daawanaysaan daafaha caalamka iyo guud ahaan wadankaba soo dhawaada waxaynu ku jirnaa gabagabadii tartankii ka socday koobka berbera ama loo yaqaano horyaalada Soomaaliland ee championka koobkaasi oo maraya marxaladihiisii ugu dambeeyay iyadoo ay ka harsan yihiin 3 maalmood toos loo ciyaari doona ciyaartii ugu horeysay afar dhabaadka ciyaartaasi oo aad xiiso gooniya u leh taariikhiyan ciyaartaasi waxay soo jiitamaysay muddooyin ku dhow 20 sano labadan kooxood oo ka wada dhisan caasimadda ayaa xifaaltanka ugu badani u dhex yaala haddaba ciyaartani maxaa xiiso gooniya leh taariikhiyan marka laga hadlayo horyaaladii laga soo qabtay wadanka ama kii ugu dambeeyay kooxda dawladda hoose ayaa ku awood badnayd intii lagu jiray garoomada balse rikoorkan ma jabin doonaan kooxda Goodir oo isu diyaarinaysa markani inay ka jabiyaan rikoorkaasi macallimiinta kala duwan ee labada koox tababaraya maanta ma joogaan garoonkii ay inta badan ay ku soo ciyaarayeen balse waxay maanta marti ku yihiin ay ku sugan yihiin garoonka Cabdalla Stadium oo ciyaarahan marti gelinayay labadan kooxood ayaa masaafo badan ay u soo gali doonaan taageerayaasha kubadda cagta iyadoo ay inta ugu badan ka safri doonaan caasimadda ciyaartan ayaa lagu tilmaamaa inay tahay ciyaar classica oo aan hore uga dhicin guud ahaan Soomaaliland haddaba tartankan ayaa maalinimadii shalay toona ahayd kooxdii ugu dambeysay ee sideed dhamaadka ku hadha ay noqotay kooxda gaashaan sool oo kamid ahayd kooxaha loo saadaalinayay tartankan kooxdan oo awood badan soo bandhigtay intii ay ku jirtay garoomada iyadoo ciyaartoydeedu ay ugu soo kala safreen meelo kala duwan haddaba awdal iyo gaashaan oo kamid ahaa ama gaashaan burco oo kamid ahaa kooxihii ugu dambeeyay ee ka hadhay gobolada dadyo kala duwan ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba iyadoo afarta kooxood ee jooga saddex kamid ay maanta yihiin kooxaha ka dhisan caasimadda Hargeysa saddexdan kooxood ayaa lagu tirinayaa inay ka awood badnaayeen kooxihii ka ciyaarayay dhamaan koobkan ama championka iyadoo aan tayahan aan isku mid ahayn kooxaha ka dhisan gobolada iyo caasimaddu kuwani ay ciyaarayeen 8 bilood horyaal si joogta u socday balse kuwaasi muddada ugu badan horyaalka ay ciyaarayeen ay ahayd muddo bila iyagoo ka faalooda kubadda cagta oo aragtiyo kala duwan iyaguna ku lifaaqayay baraha ama social media qaybaha kala duwan oo kaga hadlayay tartankan maanta gobolada marka loo eegayo Soomaaliland bariya galbeed Erigaabo ayaa noqotay kooxda kaliya ee safar dheer u soo gashay maanta ku sugan tartankani afar dhamaadkiisa waxa la eegi doonaa Erigaabo inay u gudubto finalka ama ciyaarta kama dambaysta haddii ay ka gudubto afar dhamaadka semifinalka haddaba ciyaartan Goodir iyo gaashaan oo taariikhda inta record garaysan labada ciyaarood ee ugu dambeeyay horyaalka labadaba ay ku awood badnaatay kooxda dawladda hoose walow Goodir ay hanatay iyadoo horyaalka iyaduna kaalinta labaad ay gashay labada kooxood ayaa loo saadaalinaya tartanka walow waa xool oo iyadaba aan la yareysan karin awoodeeda shalay toona garoonka ku soo bandhigtay awood ciyaareed iyadoo penalty lagu kala baxay ama gool kulaad afar ciyaarihii sideed dhamaadka saddex ciyaarood oo kamid ah ayaa lagu kala baxay gool kulaad iyadoo kooxuhu ay arkaysay awoodda ay muujiyaan haddaba koobkani yaa qaadi doona yaa ku guulaysan doona waxaa intaa dheer in maalinta axadda koobkani la soo gabagabayn doono oo si rasmi ah loo soo xiri doono yaa u soo bixi doona final dadyo kala duwan ayaa kooxahan kala taageeraya shakhsiyaad ciyaartoy kala taageeraya balse koobkan waxa ku xiga iyaduna berbera lagu qaban doona koobkii horyaalada Soomaaliland oo qorituurkiisu si rasmi uga dhici doono gobol kasta isku aadkiisa iyadoo berbera lagu sameyn doono waxa intaa dheer in abaalmarino aan hore loo bixin la bixin doono taariikhda markii ugu horeysay iyadoo la soo xulayo ciyaartoyga Soomaaliland ee ku guulaysan doona baanadoorka Soomaaliland ciyaaryahankaas oo xilliidku uu yiri waan u aqoonsan doonaa inuu noqdo ciyaaryahanka sanadka ama ciyaaryahanka Soomaaliland ugu wanaagsan halkaasi lagu abaalmarin doono iyadoo waxaan arki jirnay hore iyadoo koobka gobolada lagu abaalmariyo ciyaartoyga Soomaaliland ugu wanaagsan balse imika xilliidku ay wadadan cusub jeexeen halkaana lagu abaalmarin doono waxa si joogta iyaduna loogu bixin doonaa dhaxdii ugu wanaagsanay tababari ugu wanaagsanaa goolwadi ugu wanaagsanaa waxa ku sugan iyaguna gudida xuleysay xulka qaranka oo ay xiriirku doonayaan muddo laga joogo 30 sano Soomaaliland dhisnayd in national teamkii ugu horeeyay la soo xulo si rasmi ah liiskaasi loo soo saaro iyadoo miisaaniyadda iyo fundraising-kii lagu maalgelin lahaana laga sugayo xukuumadda dhexe haddaba sida uu sheegay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland abaalmarinahan iyo koobkan intuba waxay marti gelin doontaa toddobaadka soo socda magaalada berbera ayaa la filayaa in maalinta biriya ay ku qulquli doonaan taageerayaashii ugu badnaa ee daawada ciyaarta kalaasikada ciyaartaas oo imika laga sii dareemayo jawigeeda iyo sidoo kale guud ahaan baraha bulshada sida loogu hadalhayo iyadoo warbaahintu imika ay noqotay si joogta iyadoo u tabisay ciyaaraha wadanka oo meel xasaasiya maraya ciyaarahan ayaa soran karta 2021 waxay u ahayd waqti ka duwan waqtiyadii hore kubadda cagta Soomaaliland ay wajahaysay iyadoo maanta hal meel la isugu keenay
gobolladii Soomaaliland oo aan ahayn gobollo balse naadiya haddaba faallooyinka aad nagula wadaagi doontaan dad yaw kala duwan ee kubadda cagta ka faallooda koobkan yaa u gudbi doona final yaa isugu soo bixi doona afardhamaadka yay noqon doonaan labada kooxood ee ka gudba ciyaartooyga ugu wanaagsan Soomaaliland ay yeelan doonto qof walba isagoo qof doonaya inuu la jeclaado balse aad xag hoose nagula wadaagi doonto ciyaartooyga aad leedahay uu qalba ciyaartooyga aad leedahay uu ku guulaysan doona abaalmarintan ay bixin doonaan markii ugu horeysay xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ciyaartan dawladda hoose iyo Goodir oo ah ciyaarta ugu xasaasisan tartankan intuu socday walow ciyaartani dad yoga kala duwan ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan hoos baad nagula wadaagi doontaa cidda aad taageerada u tahay iyo cidda aad isleedahay guusha way raaci doontaa inta lagu kala badin doono ciyaartaasi oo ay dadyo fara badan aad xiiso gooniyo ugu hayso ayna soo kari laayihiin aad baad u mahadsantihiin sida joogtaan noogula xidhantihiin wixii ka soo kordha ciyaarta iyo diyaar garowgeeda intaba halkan inaan kala wadaagi doonaa